maalin maalmaha ka mid ah ayay eedadiis u dirtay ari. ilaahay amarkii waxa uu seexday geed, arigiina sidaa ayuu ku fakaday. maxaa dhacay markii uu soo laabtay xaafadda? way qabatay eedo, waxa ayna ka xirtay labada gacmood, waxayna u xirtay gadaal xarigii ayay ku ilowday. sidaa ayuuna gacmihiisii u waayay. cabdiraxmaan oo ka sheekeynaya qisadaas murugada badan ayaanu kugu soo qaadan doonaa halkan. fadlan subscribe saar Qarsooni Media, sidoo kalena fiidiyoogan like garay. أنا مجاعي عبد الرزاق ورسمان أحمد علي كل شيء عاصمة مارتي شيء عاصمة قلمدو قارهان دوس مراب مركان رشنا وأكون سجاب سجاش لحدي وحنا نغنيسا كدب أب مارتي شيء أب يهوي وإسقابين ويكلا تجان كبعدنا مركلا تجان إيدا ليجي إيدا أبر لتليجي إيدا أبر لتليجي أنا مال ما كمدا مارتا أرلي راعي أرجع ملك الراعي معناها مارتا أرجعنا وراعي أرجع مركان راعنا مارتا يشيء أرجع والله ماي أرجع سوق كل ما أنا وحواي أنا مركز مارتا يشيء هرد قبضتي أساس اللي جود أروح كل ماي أنا جنا مركز واي راعي أنت تدوج سنة جري ما مسجد هذا سدس سنة حساس سنة جري مركز الحمد لله هذا مركز دمب أرجع والله ماي هبين كحافظ إماضي والله عنانتي كبعدي صبحي اللي قاري صبحنا وحل يقول حري حرق وايو ايدو حيت له اليحرو هل يحرق انا اري ان لما اوغيس اليحرق وحرق ودا هاي لما اوغين ويلكي كلنا waa laga furay eeda ka furtay anigana ma aysan ogeyn boo iska keenlawdo gadaal اليحرق حرق gadaal اليحرق marka ila amarkiisa alxamdulillah xargis waa laga furay gacmihi waxa la arkay maarta barayo fashiyo maarta isheeg aniga gacmihigana ma go'ay lahana waayo waxa la mariyay qaba aan lagu tiragelin la mariyay aba maarta aala la meel dhahayo gobol oo deganaya la leesay maray oo ka bacdina waa ligeed wasra laga soo jaray. wiilkan waxa gacmo la'aanta dhigay eedadii la dhalatay aabihii, waxa ayna ku xirtay xarig, sida ayuuna ku waayay gacmihiisii. haddana waa uu cafinaya oo cafis ayaan ka doorbiday ayuu leeyahay. والله waxaan dareemay in maartay sheeg ya dharku waxa baan dareemay ya dharku xiri doono ya ku qaban doono ya masqul maartay sheeg ya ku gelinayo waxa baan dareemay markii dambe ilaa amarkiisa inuu aab garab isiya arkay oo aab ila joogo markaas aab isku sheeginayo waxaan aab markaas saan maadima masqul igeen doono mise aan la qabsan doono ya alxamdulillah waa wax marka qorayo kale caada qaranka caada uu qora labada gacan ku qortaa buug kale labada gacan ku qortaa waxbarashada imtixaanka marka galaayo labada gacan qalin ku qabtaa oo ku qortaa marka cuntada cunaayo baasta ay tahay dheer kale labada gacanood ku cunaa maartay markay bariis tahana qaadan ku cunaa oo maartay caadi qaadan ku cunaa alxamdulillah qubeyskana sidoo kale caadi u qubeysta maartay dharkan caadi u gashtaa alxamdulillah bariiska shaatiyaashana waxa ay ugu daran maartay markii la xiraayo bis ay ugu daran maana laba xabaan fura caadi u gashana ka bacna wali xiraa. waa wiil da'yar wuxuu nolosha ka lahaa higsi iyo hami dheer, balse taasi ma aysan dhicin oo wuxuu waayay gacmihiisii. waxa uu leeyahay markaan arko nin bajaasla ah ama nin ku xamaalinaya gacmihiisa, waxaan dareemaa inaan ahay gacmo la'aan. waxaana soo xasuustaa eedo, balse waan cafiyay. wallahi waa fikiraa taasaan beenayna waa qofku doofsa fikrin waa dhibaato, laakiin waa fikiraa marar qaarna waxaan ku fikiraa maarta hadii maarta isha gacmo alaaleed wad xoogsadeed oo maarta ama darawal iska noqon lahayd ama maarta isheeg ragga dhalinyartan shaqeysto mooto bajaaj ku shaqeysta maarta ku shaqeysan lahayd hadaa lixda laxad qabileed macna dadka ka kamid ah maarta xoogsta kamid ah maarta taas maarta isha marar qaar aan niyad iska dhaha alxamdulillah maarta maanta alxamdulillah aqoon aan leeyahay mideeda kale waxaan dhahay aqoon hadaa leedahana wax ka baas malaha qalinka ay ku qaraamanaysaa waayo waxa la dhahay qoraga dhig qalinka qaado tawra loo taataad lagu maamulana Soomaalidaas ku maamulada. waxay ugu dhalatay inaan cafiyo waxay ugu dhalatay markaan waxbarashada aan soo higsaday soo bilaabay iskuul aan dhameeyay aan arkay inaan wax qabsan karo maaragtay iskuul aan soo dhameeyay heerka jaamacadda maanta aan wado waxa ugu dhiilidiyay inaan cafiyo maaragtay aniga niyadeyda iyo qalbigayga ka tastay habeen hameenada kamid ah maaragtay aan waxaan inaha ku riyooda aan cafiyo
anigana waxaan cafinayaa dhibaatada igu dhacday oo haddana aan ka sheekeeyey in badan dhibaatadaana waxay iga soo martay eedaday aabbahay la dhalatay marka wallaahi waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtaan ee iscafiyaan cafis wax ka wanaagsan ma lahan quraan kariimka lagu sheegay way waxyaabo badan ay soo qabatay waa soo koriday waxaan arrinkana waa iska dhacay xaq qadar maartay xaq waxaan waa iska qoraayo ilaa iska qoray marka waxaan eedo cafi misaabaca ta saacadan laga bilaabo ayda qaar la ku sii dhahday ina wax qabto ina wax maartay qabto ma u haysanay dhahday ina cafisana waa kaaga madcalinaya ana waxaan eedo maanta waxba kuma qabo eedada taay aabeel dhalatay qof wala maartay maanta ilamada eeda aabal dhalatay ilamidana ma jirto oo abi aan ahayn inaan ku wanaajiyo maartay sheega ay fiican ina saka cafiya ay fiican aqri adduun kala badan cafi misaaga taanda oo ma sha Allah wax barnaayo hami jecel ina maartay idoo wax qabsan karo ina dhahay maartay wax ma qabsan kari waa qalad waayo adina maartay waxay ku noqonaysaa maartay dhiirigelin maartay ummadda kalena waxa laga dhalinyarta kalena waxa laga yaabaa inay kugu daysadaan oo ay maartay dadka wax qofku wax ku sameeyo inuu cafiyo oo maartay oo cafiska oo maartay fidiyo eedooyinku kala fiican waxaa jira kuwa wanaagsan iyo kuwa xun intaba waa laga helaa balse inta ugu badan Soomaalidu eedo waxay ka aaminsan yihiin inay tahay mid walbaba mid xun eedooyin kala duwan ayaa jira ha ahaato mid aabba qabo iyo mid la dhalatay aabe balse intaba waa isku arxaan markii loo fiiriyo dhanka xumaantada waxaanu dhihi lahaynay eedo ilaali mar walba wiilka aad u tahay eedada hana kula sinaanay ilmahaaga mahadsanid